runtii waxay u baahan tahay wax weyn laga qabto ummadana dhowr goor baan kala hadlay ilaa 6 goor ka badan TV-yada iyo ka sheegay waliba honkii wadba badnaadaan in arrimaha dibadda wax laga qabto waxa uu wadankani wuxuu u baahan yahay maanta securities haddii aan doonayo investors ama dad wax maalgashi geliyeen yimaadaan in nabadgelyo la helo bari ilaa galbeed number 2 in Somaliland wadan itiraaf leh ama loo hawlgalo bariga March David Miliband wuxuu noogu ballan qaaday Somaliland waxa la de facto state oo sida Palestine waxa haysato kale marka wixii ka dambeeyay sanad wixii waxaan ballan qaaday in dawladaha Afrika loo bilan ka sameeyo marka xataa anigu waxaan aaminsanahay dawlado badan ka Afrika ku jira ayaa jiro la yiraahdo Swaziland oo aad u yar $2 milyan hadaynu rays karayna ama xukuumadda noqotay ganacsatadeenna inaan iibsan karayna itiraaf ama kuwan TFG isku sheegay qudooda iibsan karayo marka Swaziland oo aad u yar $2 milyan hadaynu rays karayna ama xukuumadda noqotay ganacsatadeenna inaan iibsan karayna itiraaf ama kuwan TFG isku sheegay qudooda iibsan karayo marka Swaziland oo aad u yar $2 milyan hadaynu rays karayna ama xukuumadda noqotay ganacsatadeenna inaan iibsan karayna itiraaf ama kuwan TFG isku sheegay qudooda iibsan karayo